dhanka arrimaha jacaylka hadaa u maano bal horta jacaylka si isku tii wallahi jacaylka ama badii karaaba cilmiyoodan ana waayo ma dhigi karaa nin walba oo inta badan jacaylka lug ku leh wuxuu isku midaaliyaa hodan cilmi iyo hodan sheekooyinka soo qaata inta badan waana dhacdadii ugu horeysay oo jacayl taabanaysa oo geeyga Soomaaliya lagu arko marka bal saa adiga sheegtay marba hadaad xaggaas nala aaday waxaan filaynaa inaad lug weyn aad ku leedahay dhanka arrimaha jacaylka marka bal si kooban bal hadii jirto qiso adiga gooni ahaan ku taabatay oo aad heysay inaad ka alifti isku dayday maadaama aad abwaan tahay ma noo sheegi kartaa والله جعلك ugu xumayo runtii maalmaha kamid ah anoo joogo magaalada Boosaaso joogo gobolka bari ee magaalada Boosaaso magaalada markaan joogay inoo horta gabar maalmaha kamid ah gabar macna waxaan isku baranay macna horta mugtay sida dhamaan bal isku maraaco qofka qurux lagu maraaco hada qofka macna ajiibka qofka soo jeclaay samaa macna qofka qurux ku raacday qof ma dareen adig soo galaayo macna boqolaal gabdhaha isnaqaan jirno macna iskool sadiga jirno macna jaamacad sadiga waxa soo kale uma bajeedin macna gabadha waxaan isku baranay gabar waxna waxay joogtay gabadha shaay gari jirtay ana meel jaamacadda shaay gari jirtay oo maad barnaamijkii macna aad iidaabiga dhax baxdaba runtii maalmaha iidu magta markii dambe waa ila qaado macna uma siideen dhulka uma siideen waa ila saxdo ku raacanigan runtii maalmaha kamid ah macna oo dareenkayga aad iyo aad macna maamadu magta ay maaddo qalinjibadu maaro أنا قلنا جبكي ومرة معنا مقالة مقصود وماركتي أما لما حي يقول على تيراد وقف ماذا يقول عليه أنا وحي يسوع ده هواي ده جوكت معنا حاجة يبح وقت كلها لا حاجة اللي جابها معنا حاجة يبح معنا مركز يسوع ده أو حد عاد وحي يسوع معنا ميل مرمرك اللي يرى نقطة مركز يسوع نقيسي معنا ميل مرمرك اللي يرى معنا يحكي يقول على بابور كا معنا جيس كلفني معنا يدو معنا مركز وين ما تداوع معنا هلسه معنا يحكي على كان اسبتالك مركز نو حاس موجين لو ما لا اسمه معناه اي مقام سو مقنتا انت لكن قدك تلفك وكلا الدنيا اسمه وركاغي ويدنك وايو والله يقويه وانا يسيدتاي انت waxa ajiiba markii dambe waxay sheegay wiil kalkaaliya oo isbitaal Buntland jooga waxay yiraahdeen نو عليو وحاكو دعنو wuxuu yiri gabadhiya inta la keenay ee ma ogtooyro ma la socotaa warno ana waxaan waxay joogtaaniyo deegaan waxay joogtaan waa hooyadeedii aaday xagaa bixay aaday ilmay wax u qaadnaa risaalaasan ku gaarino ma soo naqadka markay soo naqaysa labada maalin kadib ay maqnaadno warno ana ka moor haya erisaxaw hadda inta joogto isbitaalka ala duul adiga waxa u malaysaa markii dambe meel intii la noo jirtay macnaha metal ahaan adiga waxay isku jirtaa sanca ilaa macna ilaa lawa siinaayo kala amal ay isku jirtaa macna adilida amba macna dibka ilaa faawa lambar afar kala amal ma garti inoo laamiga baabuurka aan raacaan qabsado hal mara waxa qabtaan koor orod macna ismadii kintaas waxaan ka wasooyaa baabuurka moogtaay waa baabuur krishboy haagaya moogtaad wala istaaja mar waa istaaja mar halaasan ka wasooyaa agta maalam markii dambe marka dambe waxaan orod ku tagay isbitaalka ku tagay wiilkii ay qabto warnoo istaago rusug balnoo program gabadh waa la xareeyay wallahi inuu xaaladeeda saytaana kama warayno saaco marka dambe waxa la yidhi warnoo way erinoo laakiin sinaan soo arka ma jirto ma yaali sug hada beelo ku jirta ana degdeg ku jira ana waxa taqatirta ku jiraan joogal inuu haya ay waa joogay marka dambe waxa aniga ninku ugu horeeyo tagaa marka dhiiga loo baahan yahay dhiiga marka dambe marka waxa aragno aniga waana laga shubaa ana dhiig leeno halay galeeyay marka dambe la baaray anoo isku dhiiga naqanay isku dhiig markaan naqano dhiigayga laga helo macnaha isku fiican aan farxad ugu weyn dhiiga aniga laga helo marka ay dhiiga u baahan dhiiga marka soo banaan laga helo dhiigeeda marka farxada aniga farxada aan farxay yaani waxay la naqatay macnaha ruuxada dhalaayo kala amal farxadiis oo hadda kadib la soo dhalinyaro ka soo bilaabo saqiir ka soo bilaabo oo hada tirsaay macna tirsaay kala amal wallahi inuu markii dambe waxa dhacday markii dambe la baaray dhigayga cabir waxa leeyahay ninkan isla markiina waxa ay maamada ay maatay wiilash saxibadii dadka qawil walaana ay maad orkay maadeen isbitaal soo bixsan warno waxa leeyahay ninkan dhiig kama baxaaleeno dhiigiisa waa yahay ee laga joojiyo dhiigani oo lagu shubana ee waxa laga yaabaa lamadooda inay soo tagaan badbaadaha la sameeyo macnaha gabadhan wiilka ka daran wiilka la joojiyo macnaha sababta loo leeyahay dhiiga yar
dhiigayga tarbisa macnaha waa yaray dil la kala qaybsho macnaha awood u malaha kale ina macnaha aniga nafsigayga inta nafsiira ina siin macnaha siin wala kale macnaha qof bilaadka mumkin nolosha ilaahay la wala dareemi kara taqdarku wuxuu yiri labadooda aniga dhibaato ugu naqay uga dhaaf ana qofkan ka mashbay digar dhiig hal laga joojiyo ana dhiig u raadin marka dambe waxa soo dhaxday ana waxa la hal laga shubo marka dambe dhulkaan isku tuuray waa la soo qabtay marka dambe la wada waxa la geeyay banaanka idida marka laga sii saaro macnaha waxa aan dhaqaaqo waxa la yiraahdo lagu sii saar marka awalan marka hadalka la saar mifdarumo waxa la yiraahdo biyo lagu soo siiha cabitaan lagu soo diiga soo bilaada soo soo bax banaanka bax wali shay alqaasiyo marka idida kasii baxay isla markii gabar walaasheedo macnaha dhulka isku tuntay oo yiisa soo baxdano aan ma dareemin marka gabadha ma arkin marka waa laga qarshay banaanka soo baxay aan waa soo noqdo marka taqtarka soo baxay oo banaanka soo istaago wuxuu raniyo Allahumma naxariista gabadhaas waa dhimatay oo naxariisi jannada Allah ka waraabi wiilkana hallo macnaha la qanciyo waa ka Allah sheego runtii waa isku naxay marka dambe wallahi program ay soo gal waya aniga waa suuxay marka dambe la wada hadalna meesha ugu dambeysay waxa la geeyay xaafada la geeyay toddoba maalin aan jiifay macnaha program macnaha waxa la siiyay la dareemi karin macnaha marka dambe toddoba maalin kadib la waday waxa macnaha wiil saaxiibkii wiil macnaha oo gabadh wax ka waday waxa inuu gabadhina oo ku duugan tahay saxaabo inta dawa ay sheeg wuxuu yirina ana ku geeyo soo bax dalab 8 saac u geeyay markii 8 saac aan jiiftay waa tagay quraan san iska akhraay habeenkii meeshan ku bariyay macnaha meesha qabrigiyo habeenkii aan ku bariyay wiilku way soo tagay macnaha wiil la yaraha waayno habeenkii meeshan ku bariyay maalintii markay ahayd 5 saac bar qorxan waa iska jirtaa qabriga iska fadhiyay ilaa markiis xilligaas inta galab ma aha maya galabantiga macnaha oo habeenkii ku bariyay maalintii kala 5 saac ana fadmiya markii dambe qof cid way raadiyay macnaha wareeg unugum ku dhaftay indoo jira magaalada magaalada filay mugta meeshaas waxa laga filaa bis magaalada laga raadiyaa runtii magaalada runtii dadku way mugtay waxa isku barnaamijnimo magaalada jira habeenkii dilay waay marka dadku dhalatay marka wiilkiya waxa yiri marka warkii waxaan ageey anoo qabrigan geeyo waa soo quraan saara oo yirmaashisan geey marka dambe dadku dhalataa gaari la soo qaatay meesha anoo iska fadhiya lagu umaado marka dambe wala soo kaay aasha quraan lagu saaray marka dambe xaafada la keenay habeenkii waxa ugu dhalatay marka erayadii ugu dhalatay habeenkii marka oo erayada in la hadda moogta ma ilaabay erayada in la hadda ma ilaabo macnaha erayo waxay ahaay macnaha waxa nafa aad u jeceshay dhawaqeeda weyso inay dhaawo xalistaay dhab lagu ugu sheego inaad adigu ku dhiigtay dhaqsi loo ogaado dhaqtar cabirka dhiig iyo dhaafa dhiig ma haaye dhawaqii ma noqoyo nafta aad jecleedana naftu dhiig darteeday ugu sii baxaysa dhiiga qayma siisaa dhabti ma isla dhimataan cimliga hoodan u noqotaan dhalinyarada deriska dhaawac jaceelna aan garan ma ku soo dharbaaxanayo dhalinyarada deriska dhaawac jaceelna aan garan ma ku soo dharbaaxan dhawaqa aan la dayalsanin dhigtaadii ma maqashaa dhulka ma isku turtaa dhaqtar leerta joogiyo dhimashada ma sheega dhaqtar leerta joogiyo dhimashada ma sheega dhaqdhaqaaq badaayo dhawaqii ma weysaa dhimir qabe ma noqotaa dhalintii ma shoogtaa dhabtii hooyada iyo dhalinyarada deriska ilmada ma daadshaan nafta aad jecleedana qabrigeeda kaligii dhaxan jiif noqotaa inay